wacan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada wararka in gacal show oo xiliyadan oo kale aad la socotaan madaxweynaha muddaxileedkiisa dhammaaday Farmaajo oo heshiis ka dalbaday ra'iisul wasaare Roble ra'iisul wasaaraha oo kulamo ka wada magaalo xeebta Mombasa ee dalka Kenya baarlamaanka maamulka Puntland oo doortay 12 kursi ee Puntland ku matalaysa aqalka sare iyo taliska ciidanka xoogga oo soo bandhigay xubno ka tirsan al-shabaab oo isku soo dhiibay intaas waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii wararkeena ugu waaweynaa iminka u diyaar garooba isagoo dhan waxaana idin soo jeedinaysa anigoo Maryam gacal balse markan madaxweynaha muddaxileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa heshiis ka dalbaday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Cabdistaar Xaaji Cali ila wareedyo kala duwan ayaa xaqiijiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu heshiis ka dalbaday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble kadib khilaaf culus oo soo kala dhex galay labada mas'uul madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay inuu xiriir la sameeyay Roble kadib markii uu ka jawaabay warqadii dhawaan ka soo baxday xafiiska madaxweynaha kana dalbaday inay dajiyaan xiisadda Farmaajo ayaa la sheegay inuusan filayn jawaabtii uu Roble bixiyay iyo dhiiranaantiisa taasi oo walaac ku abuurtay waxaana lagu waramay inuu ka cabsi qabo in haddii ay sii socoto xiisadda uu Roble qaadi karo tillaabooyin ay ka mid yihiin inuu xilka ka qaado taliyaasha ciidamada bedelo wasiirada ku dhow Farmaajo isla markaana uu ku sii dhawaado xubnaha mucaaradka ra'iisul wasaare Roble ayaa la sheegay inuusan weli u jawaabin Farmaajo waxaana wararku ay sheegayaan inuu cabsi weyn ka qabo fila Soomaaliya isla markaana uu aaminsan yahay in dalabka heshiiska uusan daacad ka ahayn balse kaliya la rabo in lagu damiyo xiisadda kadibna loo dhigo qiyaanooyin siyaasadeed culus xogaan helnay ayaa tilmaamaysa in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu bilaabay in uu digniino u jeediyo dhammaan shakhsiyaadka ku dhow madaxweyne Farmaajo iyo taliyaasha ciidamada isla markaana uu madaxweynuhu dareemay in culays badan saaran yahay kaasoo wax u dhimi kara rajadiisa doorashada Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay ayaa ku waramaya in Roble uusan weli aqbalin dalabkaas isla markaana uu jawaab ka bixin doono markii uu ka soo laabto dalka Kenya oo shalay uga bilaabatay booqasho rasmi ah taasoo qayb ka ah waxyaabihii ay isku fahmi waayeen isaga iyo madaxweyne Farmaajo dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa kulamo ka wada magaalo xeebta Mombasa ee dalka Kenya oo shalay gaaray sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Deeq Macalin Jiino ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyo wafdigii uu hogaaminayay safarka shaqo ku joogay dalka Kenya gaar ahaan magaalada Mombasa ee caasimadda labaad ee dalkaasi Kenya ayaa waxa uu gaaray magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya isagoona halkaas joogi doona inta ka harsan safarkiisa shaqada ee uu ku joogo dalka Kenya ra'iisul wasaare Roble ayaana waxa la filayaa in uu kulamo kala duwan la qaatay jaaliyadda Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya iyadoo xusid ee muunta ra'iisul wasaaraha in uu caasimadda labaad ee dalka Kenya ee Mombasa oo kulamo kula qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee halkaas ku nool isagoona ugu warbixiyay xaaladda doorashada Soomaaliya xilligan heerka ay marayso ra'iisul wasaaraha ayaana sidoo kale waxa la filayaa in uu la kulmo diblomaasiyiinta daneeya arrimaha Soomaaliya ee ku sugan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya sidoo kale laga yaabo in ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble inta uu ku joogo safarka shaqada magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya oo heshiisyo la gali doono dawladda Kenya kuwaas oo aan la ogeyn waxyaabaha ay noqon karaan waad maasantahay Deeq markana magaalada Garowe ee caasimadda dawlad goboleedka Puntland waxaa maanta oo Arbacaha ka dhacday doorashada xildhibaanada aqalka sare ee Puntland ku matalaya dawladda federaalka waxaana la doortay dhammaan 12 kursi ay Puntland ku leedahay aqalka sare 22 xubnood ayaa madaxweynaha Puntland u soo gudbiyay inay ku tartamaan 12 kursi ee aqalka sare hayeeshee waxaa tartanka kaliya lagu galay 2 kursi oo ay ku tartamayeen Cabdiraxmaan Faroole iyo Maxamed Cismaan Colaad iyo Cabdiqani Geelle Maxamuud iyo Cabdiqaadir Maxamed Yuusuf halka 9 kursi oo kale xubnaha ku guuleystay ay tartanka ka hareen xubnihii la tartami lahaa kursiga koowaad oo lagu tartamay ayaa waxaa ku guuleystay senator Cabdiraxmaan Maxamed Faroole oo helay 54 cod halka musharax senator Maxamed Cismaan Colaad oo helay 11 cod kursiga labaad waxaa ku guuleystay Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab kadib markii cod gacantaaga 65 xildhibaan ku ogolaadeen halka musharaxii kale ee Kowsar Cabdullaahi Xirsi ka tanasushay kursiga saddexaad waxaa ku guuleystay Maxamed Cabdi Cismaan Majiino oo sidoo kale ah wasiirka dekedaha Puntland kadib markii cod gacantaaga 65 xildhibaan ay ku ogolaadeen halka musharaxii kale Maxamed Geedi Maxamuud uu tanasulay kursiga afraad ayaa waxaa ku guuleystay Cabdullaahi Cali Xirsi Timcade oo ah wasiirka warfaafinta Puntland kadib markii cod gacantaaga 65 xildhibaan ugu codeeyeen halka musharaxii kale Cabdullaahi Maxamed Xaashi uu ka haray tartanka
kursiga shanaad waxaa ku guuleystay Cabdisamad Yuusuf Maxamed Abwaan oo sidoo kale ah gudoomiyaha gobolka Bari kadib markii cod gacantaag ah 64 xildhibaan ku ogolaadeen halka musharaxii kale ee Ismaaciil Mira Muumin uu ka haray tartanka. kursiga lixaad ee aqalka sare ayaa waxaa ku guuleystay ganacsade Daahir Ayaan la Saciid kadib markii cod gacantaag ah 64 xildhibaan ugu codeeyeen halka musharaxii kale Maxamed Cumar Maxamed uu tartanka ka haray. kursiga toddobaad waxaa ku guuleystay Farxaan Cali Xuseen oo horey kursiga ugu fadhiyay kadib markii cod gacantaag ah 65 xildhibaan ku ogolaadeen halka musharaxii kale Hodan Isaaq Maxamed ay ka hartay tartanka. kursiga sideedaad ayaa waxaa ku guuleystay Zeynab Ismaaciil Maxamed oo sidoo kale ah wasiir ku-xigeenka deegaanka iyo beeraha Puntland kadib markii cod gacantaag ah 65 xildhibaan ku ogolaadeen waxa ay noqotay haweeneydii ugu horeysay ee aqalka sare loogu doorto Garowe halka musharaxii kale ee Aamina Jaamac Ibrahim ay ka hartay tartanka. kursiga sagaalaad ayaa waxaa ku tartamay Cabdiqani Geelle Maxamuud iyo Cabdulqaadir Maxamed Yuusuf waxaana 52 cod ku guuleystay Cabdiqani Geelle Maxamuud halka Cabdulqaadir Maxamed Yuusuf uu helay 12 cod. kursiga tobanaad ayaa waxaa ku guuleysatay Samiiro Maxamuud Xaaji Cawad oo cod gacantaaga ku heshay 64 cod kadib markii ay tanasushay Naciime Axmed oo la tartami lahayd. kursiga ugu dambeeyay ee aqalka sare ayaa waxaa maanta ku guuleysatay Sareedo Maxamed Jaamac kadib markii cod gacantaaga 64 xildhibaan ku ogolaadeen waxa ay noqotay senataradii 11aad ee ka soo baxda Puntland halka musharaxii kale Fartuun Yuusuf Jaamac ay ka hartay tartanka. maalinta berita ayaa waxaa la filayaa in magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug lagu qabto doorashada 6 kursi oo kamid ah aqalka sare waxaana maamulka Galmudug uu noqonayaa maamulkii afraad ee qabta doorashada aqalka sare. qaybaha dambe ee warkeena ayaan soo gaarnay daawadayaal. taliska ciidanka xoogga Soomaaliya ayaa soo bandhigay xubno ka tirsan Al-Shabaab oo isku soo dhiibay sida warkaan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Muuse Maxamuud Jiisow. taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 6aad ayaa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ku soo bandhigtay Idris Cabdullaahi Macalin oo loo yaqaan Food Cadee kaasi oo ay sheegay inuu ka tirsan xarakada Al-Shabaab balse magaalada Baydhabo iska soo dhiibay. saraakiisha qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in bandhigida Idris Cabdullaahi Macalin uu Al-Shabaab u qaabilsanaa ilaalinta xabsiyada kana howlgali jiray degmada Xaradheeda ee gobolka Mudug oo ay dhawaan la wareegeen ciidamada taliska Galmudug. sidoo kale waxa ay sheegay in sarkaalkan Idris Cabdullaahi Macalin uu muddo 7 sano ah la shaqeynayay dagaalyahanada Al-Shabaab kana qayb qaatay dagaalo fara badan oo ka dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya. Idris Cabdullaahi Macalin oo warbaahinta la hadla ayaa ka warramay sida ay ugu suuro gashay ka soo bixista Al-Shabaab iyo isku soo dhiibista ciidamada dawladda isagoo ugu baaqay xubnaha kale ee ka tirsan Al-Shabaab inay isaga soo tagaan. guud ahaan daawadayaal waxaa intaa ku dhan warkii oo aad kala socoteen channelkeena Imgacal Show. idinkana waan idinkaga mahadnaqaynaa la socodka warkeena. sii sheer gareey oo la wadaag saaxiibadaada kale si aan saaxiibo cusub ugu helno.